بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا وعنا ونكسن قياري ميل بعد جوكتان هل كان وابرت عن كلنا يوتيوب كنحرك وركا قضبة برامج كان إذا كوجسوا قد بدون إسلام كان أتكودا ودونتان وحكم النقطة يا حسن شيخ محمود وصوصاري ورقلص كاس أو مركزي لحد رد هذا كسر عن يدلك على الشباب يا أهل السنة والحياة رئيس الوزراء حمزة وبغضي حفيزك محمد حسين روبل وحلك كلا وريجيو maxay magacaabista Xamse Cabdi Barre uga dhigan tahay siyaasadda Soomaaliya waxa kale oo barnaamijkan idinku soo gudbin doona isla markaana aad ku daawan doontaan 10 dhacdo oo markaasi laga diiwaan galiyay Fahad Yaasin Xaaji Daal qodobadaas ayaan isdul istaagi doonaa qiyaari ee nagu soo biir hadii aad nagu cusub tahay barta aad naga daawanaysaan waa YouTube-ka Xanta Wararka hagaag aynu ku bilowno daawadee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa war ka soo saaray dagaal ka dhacay degmada Baxda ee gobolka Galgaduud halka oo markaa dadka deegaankii Al-Shabaab ay ku dirireen madaxweyne Xasan Sheekh ayaa shacabka deegaanka Baxda ku amaanay sida nafurnimada leh oo ay isaga difaaceen kooxda Al-Shabaab oo weer bahalnimo ah halka ku soo qaaday madaxweynaha ayaa tilmaamay in qasaare xoogan ee markaasi soo gaaray bulshada iyo ciidanka xoogga dalka markaasi uu aad u kooban yahay isla markaana qasaare lixaad la gaarsiiyay dagaalamayaashii Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday reer Baxdo waxaad saaka 10 lama ilaawaan ah u dhigteen argagixisada in soo weerartay waxaad dirteen fariin xambaarsan geesinimo oo muujinaysa in ay gabaabsi marayaan maalmihii argagixisada ku dhuumaaleysanayeen gudaha dalkeena si ay u dhibaateeyaan dadkeena birmageydada ah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa Jannatul Firdaws u rajeeyay muwaadiniintii ku shiiday weerarkaas kuwaas oo difaacayay dhulkooda iyo dadkooda sidoo kale madaxweynuhu wuxuu caafimaad degdeg ah u rajeeyay dadka deegaanka ee waxyeeladu ay ka soo gaartay weerarkaasi dagaalka oo socday dhowr saacadood ayaa waxaa jab weyn lagu gaarsiiyay Al-Shabaab waxaana magaalada dhexdeeda ay uga carareen meedad tiro badan kadib markii ay awoodi weysay kooxdu inay qaadato sida ay shaacisay idaacadda VOA Al-Shabaab ayaa waxaa dagaalkaasi looga dilay ugu yaraan 40 halka uu jiro qasaare dhaawac ah oo dagaalka ka soo gaaray dagaalyahanadooda sidoo kale dadka deegaanka ayaa waxay soo bandhigeen 3 kamid ah maleeshiyaadka oo dagaalka lagu qabtay kuwaas oo iyaga oo nool dhahayo isla markaana uu ka mid yahay shakhsi markaasi Al-Shabaab u qorsheysay in uu isqarxiyo markaasi weerarka qaraxa ah uu fuliyo geesta kale ra'iisul wasaaraha magacaaban Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu kulan la yeeshay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu ra'iisul wasaaraha cusub mudane Xamse u rajeeyay in eeba la garab galo mas'uuliyadda qaran ee loo igmaday arbacadii ayeed markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu magacaabay ra'iisul wasaaraha dalka Xamse taas oo si weyn u soo dhaweeyay Maxamed Xuseen Roble waxaan hambalyo u dirayaa mudane Xamse Barre oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud u magacaabay in uu noqdo ra'iisul wasaaraha 12aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaan ra'iisul wasaaraha magacaaban u rajeynayaa guul ayuu yiri Roble ama markaas uu ku sheegay qoraal uu soo saaray ra'iisul wasaaraha magacaaban ayaa tan iyo markii la magacaabay kulamo ka bilaabay magaalada Muqdisho isaga oo la kulmay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka kaas oo ahaa kulankii ugu horeeyay oo ahaa mid isbarasho ah sidoo kale waxa wada hadalkii ugu horeeyay la yeeshay madaxweynaha dowladda Hirshabelle Cali Guudlaawe oo ku sugan Muqdisho kulanka Cali Guudlaawe iyo Xamse ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa mid salaan iyo isbarasho ah oo markaasi la xiriirtay in ra'iisul wasaaraha uu markaasi la doono ansixin dhanka baarlamaanka ah labada mas'uul ee inta kadib iska xog wareystay xaaladda dalka gaar ahaan isbeddelka siyaasadeed dalka ka dhacay iyo sidii loo wada shaqayn lahaa sidoo kale waxay diiradda isla saareen waxyaalaha hortibinta u leh waxqabadka xukuumadda cusub ay ka mid yihiin gurmashada dadka ay abaaruhu saameeyeen amniga iyo arrimaha dib u heshiisiinta kuwaas oo qaarada muhiim ah ugu jira dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maadaama halku dhigyadiisu ay qayb ka yihiin Soomaali heshiis ah dowladda heshiis la ah ra'iisul wasaare Xamse ayaa la tilmaamaa in uu yahay shakhsi si aad u garanayo arrimaha dib u heshiisiinta dalka isla markaana ku foogan in xal rasmi ah uu ka keeno geesta kale
agaasimaha macadka heritage ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho professor Afyare Cabdi Cilmi oo markii ugu horeysay ka hadlay magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay inay Soomaaliya uga dhigan tahay inay u jihaysatay siyaasadda markaasi xisbiyada. Professor Afyare ayaa qaba in magacaabista Xamse ay sar u qaadayso awoodda xisbiyada taas oo siyaasadda ka dhigaysa mid leh aragti iyo jiho ka bedelan midii sanado badan lagu hogaaminayay dalka sida uu hadalka u dhigay. Ra'iisul wasaaraha waxa uu ka mid ahaa xisbigii uu hogaaminayay madaxweynaha. Runtii waa arrin muujinaysa in loo socdo nidaamka xisbiyada oo halkii hore ahayd in aan si aqoon imaanaynin markaasi ay isqoomayeen xubnaha markaasi dalka ugu sareeyo sida ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha kuwaas oo markii hore kala xisbi ama kala qaanad ku jiray taasna u wacneed in markaasi la isqabto oo xukunka la isku dhajiyo ama la isku turturo. Arrintaas si looga duulo ayuu sheegay in tallaabooyinkaas loo baahan yahay in laga digtoonaado. waxaan isleeyahay markasta oo loo sii dhawaado xisbiyada in ay siyaasaddu yeelanayso jiho iyo waji cusub taas oo lagu go'aamin karayo in wadanku uu helo nidaam dawli ah oo la isku haleyn karo. Afyare oo sii hadlaya ayaa yiri waxaan alle uga baryayaa ra'iisul wasaaraha in uu ku badbaadiyo dalka iyo dadka maadaama uu yahay shakhsi uu Xasan Sheekh Maxamuud u soo xushay inuu la shaqeyn karayo. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in ra'iisul wasaaraha ay hortaalo dhaqangelinta halku dhigii oo laha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaas oo ahaa Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah. Golaha ha loo xoojiyo oo dooduhu ka dhacaan oo go'aamada lagu gaaro ha noqdaan oo yeesan noqon gole uu iska leeyahay ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha. Waxaan kula talinayaa in habkaas loo habeeyo si isqabsiga iyo isku dhacyadu ay u yareeyaan isla markaana wadanku uu galo jiho markaasi la isku wada ogol yahay oo ah mid nidaami ah ayuu yiri. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Arbacadii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u magacaabay Xamse Cabdi Barre oo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka horna u soo noqday xogeeyay xisbiga madaxweynaha ee UDP sanadihii u dhaxeeyay 2011 ilaa 2017. Xamse Cabdi Barre ayaa noqday qofkii ugu horeeyay ee ka soo jeeda beesha ogaadeen ee xilkan loo magacaabo. sidoo kale waa wasaarihii ugu horeeyay oo aan qurbaha ka iman oo xilkan loo dhiibo. ugu dambeynna ikhyaari agaasimihii hore ee Nisa Fahad Yaasiin waxa uu dusha saartay dhacdooyin badan oo loo haysto nidaamkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii uu socday waraysi uu dhawaan bixiyay. dhacdooyinka uu Fahad mas'uuliyadooda qaatay waxaa qaar laga sugayay inay ka jawaabaan Farmaajo ama madaxdii kale ee dowladdaasi laakiin Fahad uu awooday inuu jawaabaha qaar xawilo ayaa doortay inuu isagu ka jawaabo oo dusha saarto. 5 sano ee madaxweyne Farmaajo dalka uu xukumayay waxaa ka dhacay arrimo waaweyn kuwa badan oo muhiim ah oo ay dadku sugayeen inuu Fahad ka hadlo ama la weydiiyo ayaan soo gelin waraysiga. uma badna in la iloobay waxay u muuqatay dhacdooyinka inuusan rabin Fahad inuu markaasi gaarsiiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sheekadan waxaa ku soo koobaya 10 dhacdo oo qaarkood si aada loo xasuustay. kow dilkii Injineer Yariso gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Allah u raxmadeen. Injineer Yariso dilkiisa ayuu si caadi ah kaga gaabsaday. sidoo kale waxa uu markaasi dusha saartay weerarkii lagu qaaday guriga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. waxaa kooxda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ahayd in iyadu ay dusha saarto laakiin isaga ayaa kaligiis qaatay. weerarkii madaxweynayaasha 2 jeer ayaa la weeraray madaxweynayaasha maanta talada haya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed. xildhibaanadii loo diiday markaasi Fahad Yaasiin iyo sababta loogu diiday ayuu sidoo kale dusha saartay. xariga Mukhtaar Roobow iyo dadkii lagu laayay Baydhabo muddo dhowr sano ah waxaan ugu xiran Muqdisho. Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur ninkan isagoo rabo inuu tartamo Koonfur Galbeed la soo xiray. dhacdooyinkii maamul goboleedka dowladii Farmaajo waxaa lagu tilmaamaa dowladii lacagtii ugu badneed ku burburisay maamulada. asalka khilaafkii isaga iyo ra'iisul wasaare Rooble. Fahad wuxuu waraysigiisa ku muujiyay nacaybka iyo cadaawada ka dhaxaysa isaga iyo Rooble. dad badan ayaa ku dhaleelay Fahad inuu wax kala reeban waayay balse dhinaca kale Rooble isna dhowr jeer ayuu Fahad si farsamaysan uga weeraray warbaahinta. ridistii sharci darrada ahayd ee Khayre ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa si aan sharci ahayn loo riday bishii Julaay 2020 sababtay guul darrada doorashada madaxweynaha. Fahad waxa uu ahaa madaxii Oolaha Farmaajo wuxuu sheegtay inuu yahay macallin sixi kara qiyaasta doorashooyinka oo dadka qaar ay taasi si weyn u duraan haddana Fahad
ma sheegin waxaa sababay guuldaradii ugu weyneed ee dhacda. daawada barnaamijkan wuxuu kaga imaanayaa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee xanta wararka. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir nabaadiin.